suuqan uu ku yaala degmada Xamarweyne waxaa ganacsigiisa lafdhabar u ah dumar nolosha qoysas badan oo ku nool caasimadana waa laga soo saaraa in dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoog leh uu ka jirana waxaa sabab u ah isbedelka amni iyo kan siyaasadeed ee salka u ah dowladnimada Soomaaliya 30 sano ka hor markii uu dalku galay colaadihii sukeeye waxay hooyooyinka Soomaaliyeed dusha u riteen mas'uuliyadda qoysaskooda hadda oo Soomaaliya doorashadii hirgelinteeda lagu heshiin la yahay waxay qabaan walwal xoog leh waqti la ballamay jiray waqtigii la ballamayna waa la dhaafay doorasho maanta astaysan oo maalin hibaane ma haysano saameynta ay dumarka ku yeelan kartana qof kasta oo dareen lagu dareemi karaa dumarkana ma ahane waxay ku yeelanaysaa maatida dhibaataysan oo dhan sida dadka aan ama balka loo yaqaan ama aan dadka dhibaatada gaarka ah qabo dumarka caruurta dhalinyaradan xaabada laga dhigtay dabka lagu shidaayo ee la leeyahay soo orda iyo dagaal la idin gelina iyo kanaan la suubina waa dhibaato weyn oo annaga naga taabanayso dumarka hadaan nahay meel weyn dumarka Soomaaliyeed oo matalaad siyaasadeed ku leh labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddana door kuma laha fadhiyada madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada iyo heshiisyada la xiriira waxana ay soo jeedinayaan in mas'uuliyiinta go'aanka leh ay u turaan bulshada nugul dumarka Soomaaliyeed hadaan nahay walaac bay inoo muuqda waxay inoo muuqda dadkii mas'uuliyadda noo hayay inaysan ahayn ku haboona inay mas'uuliyadda noo qaadan waxa la yiri amaanadu waxay doontaa markay gacanta u gasho qof aan qofkeeda ahayn ama qof aan ehel u ahayn so dadka hadda jooga ee siyaasadda jooga waliba maamul goboleedyada madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo dhamaan waxa la rabaa in la isku tanaasulaadku waa halka kaliya xal ummad lagu badbaadiyo qofku markuu madax yahay waxa laga rabaa inuu dadkiisa iyo dadka u turo ma aha inuu asaga u rabo u fiiriyo Marian Taqal oo ka tirsan hay'adda horumarinta haweenka ee SWDC ayaa VOA u sheegtay in dumarka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin kala soo kulmay colaadihii sukeeye aysan mar kale ogolaan doonin in dalka uu burbur ku laabto. naga haween Soomaaliyeed nabadaan rabnaa dalka wanaagiisaan rabnaa maamul iyo nidaam aan rabnaa qof nooma calaameysna waxa noo calaamaysan qofkii madaxweyne noo noqdanta garab taagana ilaahay inuu noo suubiyo ilaahay inuu nooga dhigo mid cadaalad ka shaqeynaayo oo ummadda way cadaalad falaa in ilaahay albaabka naga soo geliyo oo ummadda Soomaaliyeed mid isku raacsan tahay oo dalka iyo dalka u hoggaansamayna aan qabiil ma rabno nina ku taageerimayna qabiil qofka qabiil aaminsan iimaanka Allah geliya leena qablaha u ololeeya arrimaha haweenka Soomaaliya ayaa u arkay in kaalinta bannaan ee dumarka Soomaaliyeed ee siyaasadda ay buuxin karayaan xildhibaanada labada aqal ee gabdhaha ah waxana qaarkood ay soo jeedinayaan in hadda la joogo goortii ay arintaasi u istaagi lahaayeen marka nabadda inta la haysto doorkaada ciyaar siiba dumarka siyaasadda ku jira ee hadda jaanis ku haysta inay dadka ka qayb qaataan waa inay kor iyo hoos meel kasta ay marayaanba ay qayb ka noqdaan wada xaajoodyada socda ee doorkooda qaataan sida ummadda loo badbaadiyo waxa la badbaadinayo waxa waay nation ma ahan dad wadan dhan baa masiirkiisi wuxuu dhinac u leeyahay Soomaaliya waxa hadda dhamaaday waqtigii hay'adaha dastuuriga ahaa iyo kii madaxweynaha dalka oo aan la ogeyn goorta uu doorasho galayo Cabdi Casiis Barrow VOA Muqdisho